الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kelmadeennan kooban aan ku baraarujinaynaa baaq nabadeed oo aan u dirayno walaalaha ku dagaalamaya buuhoodle iyo qurulligu dhexdooda iyo ummadda Soomaalida meel kasta oo dagaal ka socdo. walaalayaal waxa inagu badan dagaaladaas oo noqonaya markay meel colaadu joogsataba haddana meel kale dab ka qiiqayo. waxaynu oran karnaa waa wax ummadeenu ay ka horumari kari weyday dagaalada ku salaysan qabyaaladda, marba qabyaaladda wax soo raacaba. marka waxaynu leenahay walaalaha halkaa ku dagaalamaya idina aad baa uga xanuunsanaysaan, annaguna waa idinla damqanaynaa meel waloo la joogaba. intaana culimadana waa lala hadlayaa, ma ka hadashaan baa mar walba la leeyahay. xataa qolyaha dagaalamaya laftigooda le ma ka hadashaan. marka waxaynu leenahay ilaahay ka cabsada. qof walibana ha ogaada adduunkan markuu ka ambabaxo ee uu ka tago inaanu ehelkiisa iyo qabiilkiisa iyo adduunkiisa midna raacayn. wuxuu aakhiro tegaya isagoo keliya. falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun. maalintaa abtirsiima ma jirta buu ilaahay yidhi. waxna iswaraysan kari maayaan dadkii halkaa yimi. qofku markuu halkan ka dhaadhaco waxa raacaya waa camalkiisa shar iyo khayrba. dhiigga muslimkana dee in badanna culimadu way idinkala hadasha. qof kastoo caqlilina wuu ogyahay. waa jariimadaha iyo dembiyada u waaweyn dilka qofka muslimka ah. rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam, dembi walba waxaa laga yaabaa inuu ilaahay dhaafo ilaa qofka gaalnimo ku dhintay iyo qofka uu kasu dilay qof mu'mina mooyaane. labadaa dembigooda lama dhaafayo xadiidkaas sheegaya. mucaawiyat bnu abi sufyaan uu warinayo. mar kale nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diini maa lam yusib daman xabaraan. xadiidkii bukhaari ku sugnaa. qofka muslimka diintiisa waasac buu kaga sugan yahi. deganaanshuu iska haystaa haddaanu ku dhicin dhiig muslin daadintii. qur-aankuna intuu ka hadlay waa ogtihi. ilaahayna wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala inay nala gudbantahay waajib tahay qofka inaynu noloshiisa kula dadaalno sidii u noolaan lahaa, laakiin aan loo dhammaynin sidii adduunka loo dhaafin lahaa. min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican. qofka qof dilah dadkii oo dhan buu wada laayay. qofka qof nooleeyaana wuxuu ka dhigan yahay dadkii oo dhan inuu wada nooleeyey. adduunka halkaa inaga baxayaa xooggaa iyo xoolahaas maanta wuxuu istaahilaa in loogu hiiliyo o laysku barbar taago walaalaheenna ilaahay inta ka sokaysa cid iyo ciirsila ee caalamka lagu adoonsanayo gaaladu ay dhibaysay reer falastiin ay ka mid yihiin. kuwaasaa tamartaa maanta u baahnaa. marka waxaynu leenahay ku celcelinaynaa ilaahay ka cabsada, dhibkaasina ha la joojiyo. waxaanaan rajaynayaa inuu intaa inaga egaado insha allahu. waana u ducaynaynaa ciddii aqbasha baaqaa isaga ah. ciddii kalena allaha soo hanuuniya baynu leenahay. dadka acyaanta ah ee tiifiyada iyo baraha bulshada ka hadlayana iyo dadka shaqada ku howlan iclaamkana waxaynu leenahay kelmadda xune halkaa ka tidhaahdaana dee way idin xisaabsantahay. kelmadda wanaagsanina way xisaabsan tahay. kelmad la mahadiyey iyo mid la eedayna way jirtaa. marka haddii dadka qaarkood baa ku baaqeen nabad, inta kalena waa inay ayido. aada iyo aad baan idinku mahadnaqaya. allah idin barakeeyo. quluubteennana allah isu jeediyo. khilaafkana allah inaga dhex saaro. garab iyo gaashaan inaynu isu nahayna allah ina garansiiyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.